السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرر سومالان يوم الإسلام كيف وايد السلام يا ملك استأجوك تنبأ waxaan soo duubayaa fiideo yar oo gaaban oo aan doonayo inaan kaga hadlo niman reer Soomaaliya ah ama dadka Somaliland diidka ah oo aad u wadwada waraysi adna aadan laga qaaday oo ay adna aadan tiri reer Soomaaliya waxay lagu hadlaa 7 luuqadood ama lahjadood oo kala duwan taas oo adna aadan tiri meelaha qaar Soomaaliya koonfurta Soomaaliya hadii aan tago waxa waxaan u baahanayaa turjubaan taas ayay dad fara badan ka soo hadleen oo reer Soomaaliya iyo cadawga Somaliland ihi waxa dadka kamid ahaa nin sheegto inuu wadaad yahay wadaadnimadii Soomaalidu way iska biya dhacday waqtiyadan dambe Cabdi Xirsi miyaa la yiraahdaa Cabdi Xirsi ayaa la yiraahdaa waa ninka gashan labiska odayada kiniisadaha hadii aad aragteen qaabka uu u labisan yahay wuxuu u labisan yahay sida dadka kiniisadaha jooga wadaadada kiniisadaha ama dadka kiristaanka ah labiskooda ayuu qaabku bal u labisan yahay eega ninkaasi wuxuu aflagaadeynayaa adna aadan oo ku sheegay inay tahay beenaley ayadoo asagoo adna aadan la waa beenaley ayuu haddana asaga wuxuu geelayaa been cad wuxuu leeyahay adna aadan iyo kooxda Muuse Biixi ma aqaano cid oo u yaqaan kooxda Muuse Biixi wuxuu leeyahay kooxda Muuse Biixi iyo adna aadan waxa ay sheegayaan oo ay beenta u sheegayaan inay dadku isku luuqad ahaadaan oo isku midab ahaadaan oo isku maxaan ku dhahay diin ahaadaan ayaa waxay ka mid tahay waxyaabaha looga baahan yahay markuu wadan gooni isu taagayo waxa nasiib darro ah asagoo qof weyna isku sheegaya inuu aqoon yahay haddana inuu waxyaabaha yar ee kooban ee wadan looga baahan yahay inuu ama garan waayay ama uu ka been sheegayo waxaan aaminsanahay muu garan laa wuu og yahay laakiin waxa uu u samaynayaa waxay tahay inuu majaraha baabiyo uu beerlaxawsado dhalinyarada reer Somaliland sababtu tahay wuxuu yiri hadii ay kamid ahaan layd waxa uu sheegayaa inay dadka luuqadooda iyo midabadu ay yihiin wax go'aamiya wadan sida uu daldal ku noqdo da waxa Somaliland la jaara ama in xiriir leena wadamada Carabta oo dhan buu arki lahaa wadamada Carabta ay kala wadamada ay waana wada Carab waana kala diin waana isku diin baan ka wadaa waana isku diin waana isku luuqad waana kala wadano matalan anigu waxaan joogaa Norway Denmark iyo Sverige marbay isku ahaayeen wadan marbay isku ahaayeen isku luuqad ahaayeen alaana de waana Scandinavian la yiraahdo waa dad is ah waa dad isku midab ah waa dad isku diin ah waa dad isku luuqad ah marka si loo eego waa dad isku system oo waa wada boqortooyo waliba is ah haddana waxaad ogtahay inay yihiin wadamo inay kala yihiin oo wadamo kala madax banaan oo caalamka kamida ay yihiin waxaan ku sheegay luuqad hadii cid luuqad lagu xirayo Norway waxay ka go'day Sweden waqtiga ay Sweden ka go'day ee Norway Sweden ay samaysatay sharcigeeda iyo maxaan ku raahday dawladnimadeeda waxay u baahatay inay qorto afkeeda afka la qoray keebuu ahaa waxa afka Norwayjiga waxa laga soo dheegay qoraal ahaan afka Deenishka oo isku ahaayeen
awal horeba isku luuqad ahaayeen markay uu Norway gooni isu taagtay ay dal gaara noqotay waxay samaysatay luuqad ay leeday waxaanay ahayd luuqadii ay Denmark iyo Norway iyo Sweden wada lahaayeen oo ay wax ka bedbedeshay kelmado maxaan ku raahday kelmado matalan da'dii ta loo bedelay sida halka inaga luuqadeenu ay dhacda ugu badan tahay ayaa waxa loo xoojiyay lahjadii Norwayjiga ayaa maxaan ku raayay la xoojiyay waxaana wuxuu laga xarfuun baana la kala bedbedelay hadda dub ugu noqotaan aad aragtaan maxaan ku raahday aasaaskii luuqada Norwayjiga waxay ka timi macni isku luuqad bay ahayd luuqada Norwayjiga Danish waxa lagu sheegaa inay tahay luuqadii hore ee Scandinavian luuqadii gabowday luuqad cusub iyo luuqad gabowda lagu kala sheegaa luuqada Norway ee la qoray waxa lagu sheegaa luuqadii cusbayd ee la qoray sababta sida loo yidhina waxa weeye in wax laga yara bedbedelay ka bacdina lagu sheegay luuqada Norwayjiga anigu markaan wax baranayay markaan jaamacadda dhiganay marka matalan la yiraahdo buugaag noocaas baa laydinka baahan yahay waxa la yiraahdaa buugga Swedishka ama buugga maxaan ku raahday Danishka waxa aniga ii fuday inaan akhriyo buugga Danishka sababtay wax yar bay ku kala bedelan yihiin qoraal ahaan luuqada Danishka iyo luuqada Norwayjiga laakiin ku hadal ahaan waxa fudud qofka Norwayjiga ah waxa u fudud luuqada Swedishka taas anyway waxay ku tilmaamaysaa inay isku luuqad yihiin haddana ay saddex luuqadood oo kala qoraal yihiin macnii qoro waliba waxay xoojisay inay qorada kale waxay kaga duwaneed matalan luuqada Swedishka waxa ku badan ooda مثل هذا كرك دبعدو كسارن تاي أوضة لو أخريو لقد إسكندنافيانكا دانشكا iyo maxaan ku leeyahay Norwayjiga da'da iyo ta'da kala si loogu dhawaaqa maxmacana weyn oo u dhaxeeya ma jiro oo ahayn inay yihiin lahjado laakiin qoran waliba luuqad ka dhigatay oo luuqadeedii lahjadeedii luuqad u qortay marka hadii lagu xidhi lahaa ummadda isku afbaatihiin oo ma kala tagi kartaan Scandinavian waxay ahaan lahayn hal wadan wadamo badan oo carabina waxay ahaan lahayn hal wadan laakiin taa waxay ka wadaan waa inay majara habaabiyaan dhalinyarada reer Somaliland oo yiraahdaan isku diin baynu nahay isku midab baynu nahay isku waxan baynu nahay marka ma kala go'i karno Norway iyo Sweden hadii aad taariikhdooda akhrido waxa kaliya ay ku kala tageen waxa weeye waa tay Somaliland iyo maxaan ku raay Soomaaliya ku kala tageen markii ay isku jireen waxa awoodii la wareegtay Sweden waxa dhaqaalihii la wareegtay Sweden ciidamadii waxa la wareegtay Sweden siyaasadii waxa la wareegtay Sweden Norwayna waxay u dhacday hoos ayay u sii dhacaysay taas ayay Norwayjigu diideen taas ayaanay uga go'een Isfaariya hadii aad akhrido ayada waliba sidaa tahay oo Sweden maxaan ku raay Norway ahay tii goosatay tii tiri waanu idinka baxaynaa haddana hal maalin iyo dagaal dhex maray dhaqaalihii maadaama ay ka hooseysay ay Norway ka hooseysay si kastaba ay Denmark uga hooseysay oo Denmark wadanka muddo xukumaysay sida aawadeedna awoodii oo dhan tii dhaqaale iyo tii siyaasadeed ba ay la wareegtay haddana Norway markii ay gooni isu taagtay Sweden lama xantamin oo way gacan qabatay shirkadaha waaweyn ee Norwayjiga jiro oo dhami waxay ku soo kaabteen ay ku soo kaceen dhaqaale Sweden daymihii ay ka qaateen Sweden ayay ku horumareen hadii aad dub ugu noqotaan sagaashaneyadii luuqadii la isticmaali jiray in kasto imika ay Norway ka guurtay
marar ay khilaaf yaro dhex marmaray Sweden aawadeed Sweden waxa la oran jiray Storebror Norge waxa la oran jiray Lillebror taasay macnaheedu tahay walaalkii weynaa iyo walaalkii yaraa ee gacanta la hayay Sweden ba ahayd walaalka weyn Norwayna waxay ahayd walaalka yar ee gacanta la hayay ayadoo Norway Sweden ka goosatay haddana Sweden waxay samaysay gobonnimo in ay gacan qabato Norway dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba taas ayaa maanta anigu taasina waxay keentay xiriirkooda wanaagsan oo maanta anigu intaan iska baxo anoon baasaboor iyo waxba toona sidan ayaan shaqo ka codsan karaa afartayda lambar inta sheegay Sweden shaqo ka codsan karaa oo markaan doono u guuri karaa sababtuna waxa weeyaan macni abaalkii la isu dhigtay iyo wanaagii lagu wada shaqeeyay inkastoo la kala baxay halka aynu ku kala duwanay waa inta dadkani waa gaalo laakiin waa gobonnimada iyo gaalnimadu waa kala laba inagu waxaynu ilaahay waxaynu ugu daray dad ay gobonnimadooda hooseyso marka intaas aan ku soo gabagabaynayaa is arageena dambe sida ay nabadgeliyo ayaan idin leeyahay waxa jirtay inaan matalan waxii soo qortay Sweden joogto igu tigsaadoy waxaan jeclaan ama jecelaynaa aawada u yimaado Norway iyo Sweden waa jaar waana isku dad waa isu iman karnaa waa ku soo dhaweynayaa insha Allah anigu waxaan deganay koonaha isla xuduud Sweden ku dhow waan ka soo adeegtaa marka waa isa soo gaari karnaa soo dhawow haddaad ii timaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu